oday baa inankiisu ku yidhi aabba intaa oo sanaan masaariif ku siinaye bal maanta ku shilin aabba ii keen buu ku yidhi ku shilin dhididkaagaan rabaa inaan cune ku yaroo ciyaal magaalo weligii shaqo aan arkin aqalka hooyadii un ku koray oo dhinaca baan u dhaafin markaasuu u tagay baa la yidhi hooyadii buu ku yidhi hooya kun shilin isiiyo maxaad ka dhigayo anaa u baahan hooyeysii way siisay odaygii aabihii buu u geeyey intuu nin lacagta soo shaqeeyay iska dhigay buu yidhi aabbo waatan lacagtii hoo uu ka qaado dab hortiisa ka baxayay buu kunkii shilin ku tuuray odaygii markaasuu weliba inankiisiiba hoosta ka yar eego saasuu eegay markaasuu haddana 10 maalmood kadib buu ka yidhi bal beri toolana waan kunkii shilin aabba waan kaa rabaa fariid baaba tahay adiguye shaqadaaba taqaanaa kun shilin ii keen hooyadii unbuu ku yar wareego hooyo lacag isiiyo maxaad ka dhigay abaanka way siiseen hooye moogta hooye macaan uu keeno uu ka qaado dabkii unbu haddana ku tuuray kiina bul maalin muddo kadib uu haddana yidhi bal maantana aabbo fariid baaba noqotee oo u tago hooye kun shilin isiiyo war lacagta beryahan aad iga gurto horta halkeed geysaa way runta ma ku sheega ahaa aabbaa igu yidhi ii soo shaqee anu shaqa ma garanaye isagaan markaa u geeyaa kunka shilin oo muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallaahi dab hortiisa ka baxayo unbuu ku tuuraa isaguna markaasay ku tiri war lacag la gubo anigu ma hayee orad magaalada u gal odayga waa mithaal yani mathal xataa tafhamu shaqo tegay dad markaa wuxuu arkay nimana qaldhisaya buu arkay u waraysto maalintii imsaad soo shaqaysaayo caynkaasoo kun shilino uu la shaqo tago adu wuxuu hawl soo qabanayba uu soo qabtay uu la shaqo tago adu wuxuu hawl soo qabanayba uu soo qabtay lacagtii hore lacagtan ma isku qiimaa markaa uu keenay odaygii aabbo hoo markaasuu uu yidhi weliba hadal buu raaciyo wuxuu yidhi aabbo lacagta dabka ka ilaali dee nabiga ku sallaya markaasuu yidhi oo maxaa ku jaban buu yidhi haddaan ku tuura kuwii horeba soonigii gubayey ma may aabbo tani tii hore way ka duwan tahay tan hee tan waa dhidid baa ku baxay buu yidhi waxaan u soo qaatay maalkaas shaygan marka uu maal iyo wakti iyo caqli iyo dadaal iyo ragnimo ay kaa gasho ayaa qiimihiisa la gartaa marka diinta dadaalkeega diinta oo dadka la baraa waa dadaal diineed